انت ماشي انت سوركي او دراما انت قلك يسجلت والله ويكو أبكيلها وافكر حنطه واشيرنا وفي مسكو اكسنا حيلي تنطس إلا هات ويسيدين لاغي سيسبك ملاذا هاي انا ها كوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قاليقا ميل كستو جوجتان waxaad leenahay caafimaadku jooga waa mar kale iyo muuqaal cusub ciwaanka title-ka ku aragtaan baa maanta sheekadu way ka duwantay waxyaabihii kale ee idiin soo gudbin jirnay amba channelkeena aad ka daawan jirteen bal waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaalo fiidiyoyaal qurux badan waxyaabo kaloo idin xiiso gelin doona inaanu channelka kusoo kordhin doono insha allahu tacaala weygana soo socda waxaan idinka mahad celinaa markasta sida quruxda badan ee laagta noo saartaan ee barnaamijkaad u sii share garaysaan commenti qurux badanna aad soo dhiibataan waad ku mahadsantihiin asxaabta qaaliga muuqaalada sida quruxda badan leh ee dadka la sii wadaagtaan inta yareed haysano waxaa laga yaabaa beri inaynu kumanaan kunayna daawan doonaan hadduu alla yidhaah dadaalkeena intaanu kasii badino maanta intaa yarina daawanaysaa anigu run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markastoon arko in dad cusub iga soo biiraan dee waan sii farxaya dadaalkaygana waan sii badin doonaa hadduu alla yidhaah waanad ku mahadsantihiin sida quruxda badan leh ee aad channelka ula socotaan haddaba maanta mawduucan idin wadnaa waxa weeyaan nin caan ah oo aad wada garanaysaan oo la yidhaah Ken CK inta baraha bulshada isticmaasha amba social media gaar ahaan YouTube-ka ee magaciisa iyo muuqiisa aad ka wada daragsantiin balse waxaan isku dayi doonaa inaad waxyaabo aad ka ogtahay iyo waxyaabo aad ka ogeynba inaan kuu sheegno haddaad ogtahay waanu kugu sii daraynaa haddaanad ogeyna dee waanu kuu sheegaynaaba maxaad ka taqaanaa ninka YouTuber-ka ku socda 1 million subscribe ma Soomaaligii u horeeyay ee 1 million gaadha dhinaca YouTube-kaaba mise waa Soomaali ugu horeeyay social media oo dhan gaadha 1 million subscribe amba 1 million dhinaca social media marka laga hadlayo horta social media waa kala duwan yahay oo dee waxyaabo aaladaha la kala isticmaalaa jira dhinaca Facebook-ga waxaa haysta ninka wariyaha caanka ah ee la yidhaahdo Toosh ayaa wuxuu haystaa 1 million followers amba like oo dhinaca waa Facebook-ga marka la eegayo TikTok-na waxaa haysata inanta aadka fiidiyoyada looga yaabay yahay ee la yidhaahdo Sameeya Khaliil oo halkan ka salaamay haddii daawanayso inantaasina TikTok-ga gaadhay 1 million subscribe marka laga hadlayo haddaba YouTube-ka waxaa gaadhay Waqal Studio oo isaguna maalbirihii u dambeysay gaadhay 1 million subscribe inkastoo imika kaba sii hadee wuxuu sii kordheen haddaba markaynu ka hadlayno YouTuber iyo way kala duwan yihiin iyo studio iyo isagu waa YouTube studio wuxuu soo geliyaa heesaha mar walbana wuxuu soo geliyaa isagoo heeso ka halka studioha halkaas ay noo dhigasaan waxaynu ka hadlaynaa imika YouTuber-kii ugu horeeyay ee gaari doona imika in yar buu sii jiraa inkastoo walow markuu imika 800 gaadhay aanu fiidiyo badan aan soo gelin haddana wuxuu sii jiraa isaga dee anigu intaan arkay isaga cid ugu dhow 1 million ku socota garan maayo haddiise waxan yar inaga soo dhex galo waxaan u dhownahay meel wada oo naga raali noqonaysaan anaguna waxaan isku dayi doonaa inaan codka kor u dalaacno oo cod fara badan aan idin maqashiyo haddaba Ken CK waa nin nooceeya halkuu ka soo bilaabay bal taariikh yar oo kooban fiidiyowgii ugu horeeyay amba riwaayadiisii aan oran karaynaa aadkaan waan ugu qoslay ayaan bal wada daawan doonaa ninkan dadaalkiisa muu qalmaa mise uma qalmo 1 million subscribe inuu gaadho muu qalmaa
mise uma qalmo. Horta youtube-ka waa wax la wada arkayo, intuu subscribe-kiisa iyo views-kiisa wayna wada soconaa, balse dadka qaar baa odhan doona ninkan wuxuu ka hadlayaa iminka youtube-kiisa waynu aragnaa siduu u socdo, subscribe-kiisa waynu aragnaa sheeko kale la kaalay. dadka bini'aadamka horta Soomaalida horta marka runta la isku sheegayo Soomaalideenu anigan xitaa keena meel sare gaadha waxaan isnaanaa inuu ilaa uu dhulka soo taabanayo mideeno inuu qodqodnaa ilaa uu taata sifir soo gaadho maalintaasaynu ka hadhnaa. keena ma garanaysaa soo kacaya youtuberka amba wuxuu doonaa ha ahaado, keenina wiil la daadegnaayo chance ma siino ma ogolaano. keena meel sare gaadhay na dadka ka hooseeya isna ma soo eego oo bal ma isiraado dadkan soo yara kici, isagina waa la soo degayaa, isagiina dad ma soo saarayo, keenii hooseeyana inaguna la degnaa. marka dhaqamada aan Soomaalida inta badan xitaa anigaygan mararka qaranka isku arkoon isla yaabaa dhaqankaasaa ka mid ah. haddaba intaynaan hadalkaynaan idinku badin, bal muuqaalkan riwaayadan 1 minute soconaysaa, bal 1 minute ka aynu yara daawano KCK siduu wuxuu jilaya. bal waa fiidiyoodii ugu horreeyay ninkan aan ka daawado, balse aad iyo aad aniga iga qosliya. bal daawasho wacan. واو أفكر حنطة واشيرنا way ku adkeynaysaa. سيسبك ملاذا ilaa haata way sii diin lahayd. ها كوتا شو زي صوت استوى waxaan rajeynayaa inaad aad idinkuna aad ila soo qosasheen muuqaalka markaad soo daawateen. haddaba haddaynu ka hadalno, ninkani waa nin maray dhulal fara badan, fideoyo fara badan channelkiisa soo geliyey, walow 2 channel uu leeyahay. uu kanuun inta badan KCK films and vlogs kaasuna inta badan muuqaal soo geliyo. haddaba dhulal badan waa maray, sababta u badan ee dadweynaha magaaladan aan jooga anigu magaalada Hargeysa youtuber caan ah bariyahan dambe imanaya saad idinku la socotaan oo liicaata yimid Dirisla Cabdina waa jooga. haddaba CK iyo dhowr jeer hore yimid magaalada Kenya, markii dambena yimid magaalada Muqdisho oo gobollo kale oo kamid ah Baydhabo iyo meelaha kala maray. ayaa waxa la isweydiinayaa sababta magaalada Hargeysa u iman waayay. haddaba xaqiiqda jirta waxay tahay isagana aan ka dhageystaan oo afkiisana laga hayo ayaa xaqiiqdu waxa weeyaan in horta marka laga hadlayo dadka Soomaalidu waa dad walaala. marka laga hadlayo reer Soomaaliya iyo reer Hargeysa amba Soomaaliya iyo Somaliland marka laga hadlayo dadku waa dad walaala oo Soomaalinimo ay ka dhaxayso. laakiin haddana xagga siyaasadda marka laga hadlayo waad la socotaan oo qofka Hargeysa joogay ee amba fanaanka amba aanka marba xagga tagu soo noqdo liinta la casiyayo jeelka la geliya. liitara waa iska wada garanaysaan dilaa inticaam bay ku tahay. haddaba habtaa u tagayna waa siyaasadeed. siyaasadeedkuna waxa weeye markuu Muqdisho yimid ee uu Baydhabo tagay meel kale tagay wuxuu isiri haddii aad Hargeysa ku sii xigsiiso waxay ku malayn doonaan inay Hargeysa ay tahay maamul goboleed si aaminsan madaxda Soomaaliya inay halkan ay tahay maamul goboleed. darteed uu iman waayay. tawaka aniga run ahaantii fikirka markuu isagu soo jeediyayna aad lama yaabin. waa qofkii aqoonsan ee Somaliland jooga ee ayuunba fahmi karaa magaalada Hargeysa jooga. madaxdu waxay ka aaminsan tahay xagga. haddaba muuqaalkan haddaad daawatay yaad isleedahay waa u horgaari doonaa 1 million subscribe. aniga dhan ahaantayda waxaan sii lahaa KCK youtuberka aad in badan aan kasoo sheekeynay
taariikhdiisa walow aan laga sheekeyn karin oo haddayna isnaana caawa maanta ka sheekeeya ay waqti badan inaga qaadan doonto laakiin waxaan isku dayi doonaa bal inaan intaa kusoo dayno yaad is leedahay youtuberka aynu ku xigsiin doono commentiga nagu soo reeb waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan aad sii sheergaraysaan asxaabtiina la wadaagtaan haddii aad ku caajisteenna waad naga